asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. daawadayaal markale kulan wanaagsan. xubinteena waxaynu ku soo qaadanaynaa ciidanka wasiir janan oo la sheegay inuu weli ku sugan yahay Mandheera. gudoomiyaha gobolka Mandheera ee waqooyiga bari ee dalka Kenya Cali Robo waxa uu sheegay inay weli deganaansho la'aan ka jirto dalkaasi, isla markaana ay ciidanka ammaanka ee maamul goboleedka Jubbaland ee ilaaladu ah wasiir janan ay weli ku sugan yihiin Mandheera qiyaastii 2 usbuuc kadib markii la soo bandhigay sawirada ciidanka hubeysan ee wasiirka oo saaran gaadiid big up oo ku sugan gudaha Mandheera. qoraal uu soo bartiis Twitterka ayuu ku sheegay gudoomiye Cali Robo in dadku ay soo wariyeen in ciidanka wasiir janan oo saaran 2 gawaarida xamuulka lagu arkay iyagoo ku soo wajahan Mandheera. dhinaca kale dadka Kenyaanka waxay baraha bulshada kula taliyeen gudoomiye Robo inuu maxkamad ka dacweeyo dowladda Kenya si ciidanka sheeyaha looga saaro gudaha dalkaasi. agaasimaha isgaarsiinta ee gobolka Mandheera David Ohito oo la hadlay wargeyska Star ayaa sheegay inay weli dowladda Kenya ku cadaadinayaan in ciidanka sheeyaha laga wada saaro gudaha dalkaasi. wuxuuna xusay in ciidanka ammaanka Jubbaland ee wasiir janan la socda ay weli joogaan Mandheera. bishii la soo dhaafay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee kuwa wasiir janan ee maamulka Jubbaland ayaa waxay ku dagaalameen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ee u dhow xuduudka Mandheera. boqolaal qof dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka carareen deegaanadooda xilligii ay dagaalku dhex marayay ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland ee uu hogaamiyo wasiir janan. dhinaca kale diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa la sheegay inay duulimaadyo ku mareen hawada degmada Balad Xaawo ee gudaha Soomaaliya, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen inay cabsi ka qaadeen diyaaradahaasi hoos joog ku duulayay. daawadayaal xubinteena waa inta waxaad kala socoteen daalacan media. daawadayaal markale kulan wanaagsan. xubinteena waxaynu ku soo qaadanaynaa qaxooti Soomaaliya ku noolaa dalka Yemen oo dib lagu soo celinayo dalka hooyo. dooni ay la socdaan 8 qaxooti Soomaaliya ayaa waxay shalay galab ka soo shiraacdeen dekedda magaalada cadan ee koonfurta dalka Yemen iyagoo ku soo wajahan dekedda magaalada Berbera. hay'adda caalamiga muhaajiriinta ee loo yaqaano IOM ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay iskooda u go'aansadeen in dib loogu soo celiyo dalkooda hooyo iyagoo ka faa'iideysanaya barnaamijka dib u celinta aan qasabka ahayn ee ay xarunta Boqor Salmaan ee Safalka ay maalgeliso. shabakadda wararka ee almasdar.online.com ayaa qortay in xarunta Boqor Salmaan iyo hay'adda IOM iska kaashadeen sidii qaxootigaasi loogu fududeyn lahaa ambabaxooda. xarunta Boqor Salmaan ee Safalka waxay horey dib u soo celiyeen in ka badan 2,000 oo qaxooti Soomaaliya ku sugnaa dalka Yemen tan iyo markii la bilaabay barnaamijkaas dib u celinta qaxootiga sanadkii 2018. wakaaladda wararka Yemen ee Saba waxa iyadana ay qortay in barnaamijka xarunta Boqor Salmaan ee dib u celinta qaxootiga ka mid tahay in tasiilaad loo fududeeyo qaxootiga Soomaaliya doonaya inay dib ugu laabto dalkooda iyagoo dhanka badda la sii marsiinayo. tani markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalkaasi Yemen sanadkii 2015 waxay hay'adda IOM ku guuleystay in kumanaan qaxooti Soomaaliya Itoobiyaan ah dib loogu celiyo dalalkooda hooyo. dhinaca kale hay'adda muhaajiriinta caalamiga IOM waxay shalay sheegtay in 10,000 oo qaxooti ah ay bishii wargaareen dalka Yemen, kuwaasi oo badankooda sii taariibay dalka Sacuudiga. in ka badan 270,000 oo qaxooti Afrikaan ah oo badankooda kasoo jeeda Soomaaliya Itoobiya ayaa la sheegay inay weli ku sugan yihiin gudaha dalkaasi. daawadayaal xubinteena waa inta waxaad kala socoteen daalacan media.